محمد اسمان حاجي أحمد برصابك قبل كجبيلي ومانت وربعين تقول هالليي حفيز كيسا أيا كور بحيي وحقبت كيك لدوانا أهور قلي أنتو هيي حلك برصاب نمو قبل كجبيلي وحن هذا الذي سيكمدها هدان وصل نقضي حق عافماتك إذا قبل كعافمات كيسي عاد بوشقينيا وحضروا ما أنت كدي لا مثلاً MCH دي عستالة دي نسوا عم بوشقينيا كنت وحنا كسوكر من ما أنت الدولة السومالية عند قدرة ميزانية دي عستالة كلمة هو يقول شرين ميزانية دي خرج كيسي دي أي نقول لها برهول كي مشاركة أجاب كي كلا جشقين لها إيجانا لو صدري وحنا كهول قال لي إن عن عستالة كاني هيدا البصل عندها أو شن كانوا قف سكرين وقصة ميسي دوين iyo muraayado horumarka ka socda waxa iyaguna barbar socdo aan isugu yeelnay hay'adihii magaranaysa iyaguna ka shaqeyn jiray gobolka iyo caasimada oo isugu yeelnay haday noqon lahayd dadkii aba duufaantu ay ku dhufatay hadii noqon lahayd horumarka gobolka ka socdo ay ballan qaadeen nalana qaateen in ay ka qayb qaadanayaan hadii ay noqon lahayd waxbarashada caafimaadka biyaha iyo beeraha intaba runtii waxaan u dhagax dhignay oo hawshiisaas imika socotaa iskuulka Wajaale oo hay'adda Action Aid iyadoo loogu dartay 4 galaas iyo 6 galaas oo ah repairing ay ku wado iyo mas'uuliyadii oo hagaajinayso beeraha saacadihi ay bixisay xukuumadda oo loogu talagalay dadka danyarta oo loo qeybiyo beeralayda gobolka waxaana ka faa'iideystay 2610 qoys baa ka faa'iideystay iyadoo wasaaraddu ay beertay mashruuci banka Wajaale waxa kale oo iyadana barbar socotay waxay bilaabeen in ay buuxiyaan wadooyinkaas go'go'ay oo shilal badan sababa taana bisha August dhamaadkeedana waxay keeni doonaan layerkii in la dhigo ilaa 7 wado oo kalena waxa gacanta ku hayso banaysay dawladda hoose ee magaalada Gabiley waxa kale wasaaradda xanaanada xooluhu ay dhagax dhigtay socdana mashruuciisana la bilaabay oo imka gacanta lagu hayo dhismihiisii laabkii xoolaha lagu baari lahaa oo hirgelinayso jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan wasaaradda xanaanada xoolaha waxa kale oo iyadana jirtay in la dhagax dhigay xaruntii horumarinta dhalinyarada ciyaaraha wasaaradda ciyaaraha dhagax dhigtay waxaana ka qayb qaadanaya dawladda hoose ee Gabiley wasaaradda ciyaaraha iyo hay'adda UNFP ka weyn ee magaalada Gabiley waa jeel weyn oo dad badan ay ku xiran yihiin runtii qorshahana waxa loogu daray sanadkan in la dhiso jeel weyn haddaan ugu horeysiyo waxqabadka degmada Gabiley waxa uu qabsoomay dhismayaal fara badan waxay bixisay kharashkii ku baxay raashinka mucaawinada ee dawladdu bixisay ee la siinayo dadkii duufaanadu ay yeeshay ee Gabiley waxay ka qayb qaadatay dawladda hoose ee Gabiley kharashkii ku baxay Towblanka oo degmada Wajaale dawladdu hoose waxay si mug leh uga qayb qaadatay taakuleyntii ciidanka qaranka waxay dhistay dhismaha saldhigga booliiska ee Geedbalaad dhismaha saldhigga booliiska ee xaafadda New Gabiley dhismaha saribada kala bayd dhismaha ilaalinta dawladda hoose dayactirka garoonkii hore ee Gabiley dhismaha xafiiska iyo qol waashmaan oo lagu kulbiyay iskuulka New Gabiley taakuleyntii dawooyinka isbitaalka dhimirka biyo gelintii iskuulka Tusbaxle fulintii mashruuca horumarinta beeralayda degmada Wajaale hirgelisay oo laga hirgeliyay town plankii wadooyinkii lagu baneeyay waxaana lagu qiyaasay in la dhameystiray ilaa 150 wado degmada Allaybade waxa si xoogan iyagana uga shaqeynaa wadada u dhaxaysay Arabsiya Allaybade iyadoo ay caratuulkii gabagaba ku leeyahay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay waxaan uga mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland nidaamka xukuumaddaadu ku saleysan tahay horumarka cadaaladda iyo nabadgelyada ويالنا حاجي تيفيق قرنك Somaliland مقالة Gabiley